السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كسر معي الأمان ومدة الصوماليات دليل دبنا ملك ساعة شوكتان الله يدكو أمان ساعة مرشية شوكتان بقى ولا لا يروحان هالك نصوف الاستعاوة إن عدك يجكب ويريو فلالك وحشن مضى يفول حمضى متقنا شرع الإسلام يوميتك قالدا عن منا ميل كل هين لو رافي دبعت عدسنا لو جستي تذكي ولا لها إديوغان كودي جوجي إدول كودي جوجي إدل كي سوماليا ميل يو مجال يو قبل كميدا وأن عدنا كشيء كريم عدنا كلا حين لو دبعتي لقى الرافع ولا قى ترحيلي سفول حمولي بالله رقم ما تذكر ما تقنا سيدي أري دابح أري قاري دقا دير لو رأي فهمتي وحوي أرنتها سمتقنا ضد ير أو كون أيام مسؤولية دا إسكالة آخرية الدون كولا قول حساب تاني دونا تاريخ مدو يبر مدو أيه كتاي كواس متقنا عيل قبياشة إنا كاهن يا مسبحي يا أنت يرى علاقاتها يا كهوس شقيسة وحبا أن كحشونين مجيء قبل كود يدد كود يشرف كي كرامته دي متقنا واحد قال درتيا ومتقنا ما أنت عد قاعدة كرتا ومتقنا أي وعنتبي كرتا يعني ترن أيقو قاطي ولا لا ينسوا ضد كاس متقنا أنا جو كهلا يا مجا حد اللي يراد غير SSC وحنا هالكن رجالين بلارن كسينا يا ضد كاس دبعتو سو قاعدي كونفورت الصومالية جارهان رير كونفور قلبيت وحلنا ولا الأرنتا وحاول يسد يديد ضمقضي أي نوع ضمقضي runtii waxa weeye idinku dhibaatada hadda uun baad ku baraarugteen in badan dadka bulshooyinka reer SSC waxa dhibaato tacaddi nooc kasta oo ay tahay oo dil oo qafaalasho leh oo afduub leh loogu geysanayay maxaad u aaminsan tihiin uguna taagan tihiin midnimada Soomaaliya dadka dhibaato weyn baa soo gaadhay runtii waxa weeye dadkaasi tiir la jabi waayay ayay u noqdeen midnimada Soomaaliya waxa ay markaan mataqaan ku taamayeen waa kala dilka iyo kala fogeynta ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ee dantu ka dhaxayso ee aan sinaba u kala maarmin marka waxa la reer laas caanood arinta waxba shaqo kuma leh ayaga dulman oo 15 sano SNM cilqabe ina musabixi iyo ina kaahin ay taqaana waxgalkoodii iyo haldoolkoodii ay dhameeyeen oo ay qafaalasho iyo mataqaana afduub ay ku dileen waa maran habaabin dhiiga haldoorka halka lagu laayay waxa weeye akhri adduunba waxaan kula xisaabtamaynaa waxa weeye waa jamhadda maleeshiyaadka SNM ay horjoogayaasha ka yihiin ina kaahin iyo musabixi waxaan leenahay hadheeraato hadhawaato soon or later waa idin kula xisaabtamaynaa waa leenahay dhiiga dadka iyaga aad dishayna ma maray habaabi kartaan dadkaasina waxa weeye 35 sano ayay laascaanood magaaladoodii hay dhulkoodii hay nabad ku joogeen ma taqaana ka shaqaysanayeen ku noolaayeen nabadgelyo ku haysteen carruurtooda wax ka baranaysay dilalkaasina ma dhici jirin dilalkaasi intii aad idinku aad magaalada aad xoog ku qabsateen falalka gurrucan ee waxashnimada aad ka wadeen ayay kamid ahayd waa tii aad ugu bareedeen maalin cad dadkan hoggaanka u ahaa Allah naxariista Cali Khaliif Galleed oo salax dheer ku dhiganaya caleemasaar in aad halka ku dishaan oo ku khaarajisaan dadkii u bareeray laatiin ma waxaad ka gabanaysaan oo mataqaana aad ka dhuumanaysaan dadkan kale ee mataqaana mas'uuliyiinta ee lascaanood ku disheen waxaan leenahay nama maray habaabi kartaan waa idinka shisheynaa waa idinka sokaynaa dhiiga dadkaas idinka la idin haystaa dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaalow arinta hadda uma dhibaatada aragteen reer laascaanood waxa way 25 sano ayay dulman yihiin reer SSC waxaad ka warhaysaan musabixi iyo ina kaahin inay 300 oo qof oo dhalinyaro oo xaq u diro deegaanka dhulkooda difaacanaya ay ku xasuuqeen ka shaale mataqaan ayagoo 700 kiiloomitir ka soo duulay mataqaan record-koodii iyo fiidiyoyadoodii iyo cadeymaheedii waxay dilaayaan waa in lagu xisaabtama ayagoo shalay maanta dulmi ma ka dagaalanay inay maanta kii shalay mid ka foolxun oo xataa mid gaalada iyo islaamku ay isku sameeyso aan ahayn inay maanta dadkii Soomaaliyeed ula bareeraan ku sameeyaan waxaan leedahay leedika yeelanaayo dadka Soomaaliyiin ma tihiin dadka wax ma dheeridin waa leedu kula xisaabtamaya waxa weeye maalin walba maalintiina ahaamayso marba dadka ugu liida doontaan oo idinkana leedala xisaabtami doona oo ma taqaana cawaaqibkeeda aad mari doontaan kharaarka iyo dhibaatada ay leedahay aad mari doontaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada bulshada Soomaaliyeed ee meel walba joogta arinta aanu runtii aanu midowna waa arin foolxun waa arin ummadda Soomaaliyeed si kala fogeynaysa midnimada ina deeqda dulka ma kala lihin dalka ma kala lihin waa in yar waana intaas waa in lagu